السلام عليكم وعن أو ونكسن داوديال ميل كستا oo aad caalamka nagala socotaan xogaha laga helayo gudaha ciidamada iyo maamulka maleeshiyaadka huwanta iyo dhulbahante ayaa sheegaya in markii saddexaad oo xidhiidh ah oo kama dambays ah ay ku soo qaadayaan dagaal xoog leh gobolka Sanaag iyo Cerigabo. haddaba guruubyada aaladda WhatsApp ee ay wararka ku kala qaataan madaxda maleeshiyaadka huwanta ayaa laga helay warar cusub oo ku saabsan sidii dagaal mar saddexaad loogu qaadi lahaa oo markaasi Cerigabo iyo Sanaag ah kaas oo noqonaya kii ugu dambeeyay ee ay kaga quusanayaan in lagaga adkaado iyo in ay ku adkaadaan labada midkood. waxa ay dhigeen shaxda dagaalka iyo geesaha ay ka bilaabayaan dagaalka. waxa ay jeexeen khariirad cusub oo dagaal. waxa ay baaq u direen cid kasta oo daarood ah oo ku sugan gobolada dhexe ee Soomaaliya si ay ula xoojiyaan dagaalka Cerigabo. ciidamada madaniga ah ee Garxajis 36 iyo SSB habar jeclo iyo ciidamada qaranka Somaliland ayaa heegan culus kaga jira gees kasta oo laga filan karo dagaal in ay ku soo qaadaan maleeshiyaadka huwantu. hub iyo ciidan xoog leh ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan maleeshiyaadku. dhinaca kale waxaa laga helay siro badan iyo codad maleeshiyaadka huwanta kadib markii ay sheegeen in ay ku soo jabeen dagaalkii Cerigabo maalin hore. waxaana ay sheegeen gaadiid dagaal, maxaabiis fara badan iyo dhimasho badan in ay ka soo gaadhay dagaalkii maalin labaad. hase ahaatee deegaanada ku teedsan degmada Qorlugud iyo Buqdharkayn ayaa sheegaya in ciidamada kala duwan ee madaniga ah ee habar jeclo ay mar kale ku ruqaansadeen tuulooyinkii ugu badnaa ee laga difaaci jiray Buuhoodle ee ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka huwantu. ciidamada madaniga ah ee SSB ama habar jeclo ayaa iskaga soo baxay daraato casarkii tuulada Shangeed oo ay ku sugnaayeen markii hore beelaha dhulbahante isla markaana ay ka qaxeen kadib markii ay ka war heleen in ciidamada madaniga ah ee beelaha habar jeclo ay ku soo wajahan yihiin. Maxamed Cawil Siyaarag afhayeenka ama taliyaha ciidamada madaniga ah ee habar jeclo ee deegaanada Qorlugud ayaa shalayto u sheegay warbaahinta in huwanta iyo beelaha dhulbahante in uu ku furay albaabada naarta iyo gogasha cadaabta jahannamo sidii ay ugu hooban lahaayeen. gees kasta oo markaasi ay huwanta iyo beelaha dhulbahante ka danaynayaan in ay dagaal ka soo qaadaan waxaa horjooga ama hortaagan ciidamada madaniga ah ee kala duwan ee G36 iyo SSB habar jeclo iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.